koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arbalwarra waxaad war haysiin nabadgabni laakiin walnii dhaha jira warribayo war baan idin haya abwaan maxamed sahlayraa wuxuu yidhi waa berigii u horrayso mas-uul baawarka haysto xil ballaaran la siiyey magaaladeenna banaadir barqadii ka khudbeeyey waa berigii u horrayso buskut suuq laga iibshay waa berigii u horrayso bariga afrikaad laga fulay bajaaj waa berigii u horrayso eletareeyo la booqday waa berigii u horraysay oo baraym minister la doortay oo etoobiyaanna bariidshay wartaasu waa iska bilaasha waa berigii u horraysay oo cirka roob ka butaacay biyo dhoobay xareeda war maalintiinka horraytiyu bilaankuriyar orosow nimayow saas maa horaan waxaa loo yidhi bursaliidnimo bees lahayn mukubashaanayo waa markii u horraysay ee dhallinyarada ay dareemaan in ay waddan leeyihiin waa berigii ugu horreeyey oo baahi aan la fadhiiso baagamuurdo dareemay hoy baaco bajaaj mawootidoo maxaawaad baraka beele bataatanta yaal ho bataata haysto baahda faday war beeraha muufasho duudkiis intaas u dhan yahay maxamed sidaad baraan ka diidnay beeraha fasha cid kalena ka yeeli mayno tuugsaha waaye war shabakadihii waxbi'inta iyo baabi'intu way nugu soo bateen maanta daacish iyo shabaab baa nugu baratamaya daacishta weyn ee suuriya joogtaa bayaan ay soo saareen waxayna u direen alqaacidada toorabora waxayna uga dacwoodeen alqaacidada soomaaliya u joogtaa ee al-shabaab waxayna ku hanjabeen inay baabi'in doonaan al-shabaab haddii aysan ugaarsiga ka joojin daacishta soomaaliya weligay ma maqal soomaali toorabooro looga dacwoonayo laakiin al-shabaab in la baabasho waa ku raacsana wari haddee toorabooro ngordaana hatta tooratoorow likiinkuweere adaa ay wacay haddaba haddii laysoo waco warnimayo waxaa layidhi diinaa habardugaag u tashatay waxayna ku heshiiyeen inay cunaan diinkii waxaa loo sheegay akhbaartii habardugaag ay ugu tashteen diinkiina wuxuu yidhi meeshay iigu tashanayeen sow ilaahay ma joogin ilaahayna qolofka aad aragteenee weynu ku daboolay diinkii marka meesha daacish alqaacida ay noogu tashanayaan sow ilaahay ma joogo nimayo horaan waxaa loo yidhi war gallay ma naqahaayo war nimanku annaga nooma kala wanaagsanoo waana dilayeene inay isdilaan soodan nooma aha wariyaa lamamarooda meeliga dagaalantay eesaka baaba'e horeba waxaa loo yidhi allow laba debi isku jaanqaad oo mid noo jibi aan jirjigannoo jiirka kala baxnee hay soo kala reebeen kay soo reebaan baa annaguna reebi doonnaaye war nimayo balaayooyinku aniga intaa waygala badan yihiine erayada macaan ee abiin nugu ikbaaraayo iyo orommada eheladii weerarka u aaday labadaasi aayahay dhashaan la arki doonaa xabad kama fahmin aniga orommo uma sheegin adeer kumana qusayso nimayo waxaa la yidhi nabad iyo markii nolol la helay ee la wada naaxay naaqnaaq bar baa jiray ayana dooda soo naqay warniyahow gabaygaada waxba kama fahmin waxaan u malaynaa marka laxankiisa inuu laha sheekh shaakir warniyahow warkaaga waxaan u fahmay habartii docdooda daruuruhu ka horeen dadku wada helmoodo dad warrac bay tiri ayaduba waxba ma hadleenoo waxay aragtay sheegtay warwar ma haysiine korneel gabra xabsiga ayaa loo taxaabay keligiisna ma ahanoo 80 saraakiil ah oo inta badan soomaaliya dhibaato u geystay ayaa lala xiray marka nimanyow bur iyo biyaa loo kala baxayaa intii dembi naga gashayna waa eedi doonaan war adeeru gabra waa lacagaystaye kuwa baahan baa lagu bedelayaa maxaa kuu kordhaya geeska afrika nabad baa ka dilaacday dadkuna way wada noolaanayaan war gabra ma farmaajo xilli ka qaado war farmaajo iyo abiy axmed way sog yihiin warnimiyo ani warsiinhaaye gujugujudii koonfur galbeed lakahaaye walka gudibi mardhow doorashadii adhiyaasaalaari gudigii hata ka hor isasili diba lahan magacaabihaan oo kale mayka heesay abwaang meelirooga martiley koyti makoyne tumani lamaadey galaanjeley kase martiley koyti makoyne tumani lamaadey galaanjeley kase yeeli war muruntan iyonayma murugnaba mardhow walgobade doorashadeeda ariirow inqarawti indhawayti toosti koonfur galbeed indhawayti toosti koonfur galbeed war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi qaraxyadii huteel saxafi ka dhacay shirqool bay ahaayeen lala beegsanayay aniga iyo xildhibaanno kale waxaana
soo abaabulay shabaab iyo dawladoo isku dhex jira sababtoo ah hubka iyo dariiska ugu jiray shabaabkaba dawladdaa lahayd marka anugu waxaan la yaabana xildhibaanku habeenku xasan shiikh ballanka inta la galay uga baxay isagana inta farmaajo ballanka la galay uga baxay afka waa isku darilaayaa ka bacdi xaday laga xaday xaalkii waa shibe maxaa xildhibaanka waalay ma iska aamusa waa la fahmi karaa meesha laga hayo damqanayse war labada isku dhex jira sheegay ma dawladda shabaab ku dhex jirta mase shabaab baa dawladda ku dhex jira midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waa la bedelay gabaygaasniyo midba hub ha qaatiyo weji xirasho gooniyahe shaki ma leh inay laba argagixiso isdilayaan war booliska kenya shabaab ay lacag ka qaateen ayay gudaha u ogolaan si ay qarxyo u geystaan war waa tii beled xaawa laga ceeriyey shabaab xaasaskoodii iyo carruurtoodii iyaguna waxay yidhaahdeen haddiina la ceeriyo waa go'doominaynaa war xamar aan la go'doomi karine maan ka ceyrinna carruurtoodii iyo xaasaskooda war xaggee joogaan ha la ceeriyo ma xume su'aashaas awalan ka baqayo anigu inay ugu soo laabato war macallimiintii maryan qaasin markii qandaraaskii goto iskuul ay qaadatay howlgelisay oo la yidhi mustaqbalka waxaad noqonaysiin mushaari rasmiya waxay yidhaahdeen markii xuquuqdeenni la helay ayaa waxaana la yidhi goto home kadibna waxaa la qortay macallimiin kale war markii hore waa tii la yidhi goto iskuule ma markay muddo soo shaqeeyeen ayoon xuquuqdoodii la siin la yidhi goto home see ku dhici kartaa war gabaar deeb karafadii muraadiyay deeriyal danto bilka deeri goto huwe wala ere horaan waxaa loo yidhi dafa haddii malab lou qabeeyo galar miisku bedelays abadan waay war goodax ma taqaaniine goto home baa sheegaysaana goto heel ayuu leeyahay hadduu rabo goto iskuul ma waxaad ka wadaan iskoolka ardada ha u googoydo war bayle wasiirka maaliyadda waxaa la yidhi xisaab xirkii 2017 ma keenin tii 2018 ma keenin hadda 2019 miisaaniyad loo ansixinaya ma jirto war bayle lacagtii ma uusan xisaabin cidna ka yeeli ma anigu yahay ii sheeg warkaasi socon maayo xildhibaanadu macaamil waa yaqaanin baylena waa la macaamilaya war wiilashayba lama caamilo ilaan deengabal ay deegnananka darna abadan war maamul goboleedyada muxuu leeyahay wasiir bayle xisaab xir ha keenaan haddii asagaba uusan keenin xisaab xir war madaxweyne caaf taniya markii cadaada laga doortay nin la yidhahdo baasto dambe liima keeni karuu yidhi war maadaan maqal madaxweyne baastan ku nacay baga muudaa warkii hore war soo dhaaf waayeel qorof lahaa yimidaa la yidhi wariyihii jamaal khashogji dilkiisa wuxuu ku caddaaday bin salmaan dhimasho sugaha sacuudiga war dhimasho sugihii sacuudigu ma dembiiluu noqdo asagaa cunay hilibkii wariyaha war madaxweynaha filibiin waxaa la yidhi shirar badan ayadoo laga sugayo iska seexday war gaadiriyaysnaaye horaan waxaa loo yidhi nin seexdo saciis dibiyeen dhashaa war yaaya dharka waa yasaabaa la yidhi ruuxii waalan markaad waala jirtaan la gaaray ordaha naga taga markabaal isku duufeen dariishadaan ka isku duufeen dariishadaan ka dayaa lama dabaal isku duufeen dariishadaan ka dayaa